suuban hooyadeed waxa ay dhimatay kolkii ay dhalatay aabaheed waxa uu ka dambeeyay 3 sanadood suuban waxa ay ku soo noolaatay waayaha tawlaanta waxa ay joogitaanka dunida ee xilli koriimaadkeedii ka mudatay illa iyo ciisila xoolihii aabaheed ka dhintay waxa ka duudsiyay adeerkeed oo u sokeeye sheegta ase aan dan iyo heelo kala hayn suuban jiritaankeeda iyo qofnimadeeda dhibtaas ay u geysatay suuban in ay dhadig tahay iyo duudsigaas ay ka mudatay dhadignimada ee seejiyay dhaxalkii aabaheed waxa u sii raacay kolkii ay gaartay guursiga in ay nolosha wada samaysteen saacid kadib waxa ay saacid iyo suuban isu dhalayaan 3 hablood oo isdaba jooga saacid oo aad u saluugsan hablahan ay dhashay suuban filashadiisuna ay ahayd in ay wiilal dhasho gaashaanqaad ah ajliga qabyaalada ee ah in dhulkan ay ka jirto colaad daran oo ay qabyaaladu samayso wiilkuna uu door sareeya ku leeyahay qabyaalada kana mudan yahay gabadha isla jirkoodii ayaa soo gabagaboobaya saacid iyo suuban sababta in ay habla dhashay ayuu saacid u siinayaa dalaaqdeeda suuban sidaas ayay ku kala tagayaan suuban oo kolkii hore hal kaliya ahayd ayaa kolkan wadata 3 hablo ah iyaguna nolol ciriiri badan ayay suuban iyo 3 gabdhood mudanayaan cid eegta male waxa ayna ku eedeysan tahay in ay tahay dhadig ayna dhashay dhadig kolkaas cid u baahani ma jirto dadka oo dhan eedda iyada ayay saarayaan waxa la leeyahay waa tii gabdhaha dhashay inaga oo sheekada suuban ka suugaameynayna ina suugaameedkan ayaynu niri maansadan miraheedu ay kugu soo aadan yihiin maanso anigu ma sameeyo sahnaan nololeedka dhaqankan saranseerka saneenka saleelka saameynta dhibtiisa Soomaali sideeda habkiyo salafaynta Soomaaliyeeda sideer saxalaysan si loontan la qaatay qabyaaladu seeska siyaalkiya yaabka sareynta raggeedka haween silcinteeda hadma laga suuli sahroy ina jaamac sidoo qabo saacid midaan ku sugaysa hadaad sahalkeenkii sareedo ka yeesho yartii samsam ciise suleekhaha gaarto balsi mari Saynab Suhayba u sheega salaad subaxeedkii kolkaanu ka soofnay waxaan tagay suuqa maqaaxidii suuban waxaan iri suuban salaam calaykum sidee yahay xal salaan celinteedii waxay tiri saalax sibaan ahay maanta waxa sakaraada aan seexad solaynin xaloon salaleysay afkaana wax saarin sareedo yartaydii sunuudna ma haysto waxaan iri suuban la sakhiraya aan soo waco gaari si aan ugu qaadno doctorka Saciida hayay tiri saalax horaanu u saarnay dadkoo safu taagan sartuu ku shaqeeyo intaanu sugaynay ayaan iri suuban asooy sida taanu sahan aragaano sandaqad fadhigaano canjeela samayskan sambuuskiyo shaaha marsuugiyo caano sanuunada yeelka intaadan ku soofin hadaan ku su'aalo sooyaalka naftaadu halkuu salka saari waxay tiri saalax aniga 3daydan subxaanku isiiyay sareediyo caasho siraad curadayda in eeba samayska safka dhidigoodka u saanyaday ruuxda kuwa ka saluugsan samayskana diidan ayaa sababtaas leh soo tiisha naftayda horaantiyo saaka sabaanka dhibtiisa anoo sabiyo yar saqiirad caruur ah ayay sahlan hooyo adduunka ka suushay markaan 3 gaadhay waxa xigay saaja waxaan mutay soohan sokeeye mid sheegta ayaa dhaxal seega xaqaygii iseejay sacban helay xoolo hadaan 30 gaadhay ayuu mid sabaabi jacaylkan isaaqay ku yeen sadrigayga adaa ku samaysan ma seexdo habeenkii wuxuu sasabaada sineemada geynta hadbuunsiya sheego suweel kala siibka marsuudkiyo jaakad si uun iska yeelo sirtaa ku sirmooday run mooday suntiisa waxaan noqday sawjad hadaan guri seeska haddaan salka yeelay asaan sanad joogno 9 sidkaygii wuxuu sawirkiisa wuxuu sugo wiilka wuxuu sahal sheego sarkaal noqon doona siraado dhalkaygii islaan sacabsiintu kolkay ku salaantay sibuu iska yeelay ma soo marin aaga sareedo xigsiinta ku soo daray caasha kolkaan saddexeeyay salow iyo qaylo sarwaan iyo qaydin ayuu subax joogta dusha iga saaray waxaan iri saacid warhooy ma sariigte adoon lagu siiyay sadkaaga ahaatay sidaas ma
ahaanin sareeyaha siintii haddaad ka sasayso asaad sinifayso isoo solanayso anigu ma sameeyo ma saanaco uunka dhan uun sumadayntu wax saylad dhex yaalla sabeeno sidoodii kanaa sarar weynle lasoo kala soocdo sidaas ma ahaanin dad baanba la siinin iyagu ku saraynin sidaas ku sabraaya sargoynta ilaaha siyeelka adduunka safaynkiiyo qaabka dad suurad u yeelka samayskiyo muuqa kol saantiyo eegga mid suufnimo weyda midka surka weyn leh sankiyo indhahooda sideerta habloodka sidaan taragoodka haddaad tahay saacid asaan ahay suuban in saamiga qaybta sadheeri lahaansho sareeyaha reerka in howlaha seeska banaanka usoofka masruuf lagu saaray in aan aqal saahib kol soorta aan yeelo 9 biloodna calool kusidkayga marcaanaha siiyo miduun surunkiisa kolkii laga saaro sinaan bini aadan midkeen ma sareeyo si aadan isyeelin samaani ma taalo sideer iyo saatan hadeer iyo saacan sidaani si maaha isi saddexdayda wuxuu yiri saancad haddaad iga soofi ku siin saddexdaada asaan ku sagootin socdaal isu saahib wixii ka qaado sariirtan ha taaban fartaada ha saarin anoo safradaysan anoo sita caasha ayaan surin qaaday waxaan si dul saara ayaa mala seexday heblo gacalsiintan soo gacalaystay samow ina soo wad safkeeni la gaariye dhexdaan xirtay suunka iskuulkii u saaray masruufkana siiyay dib soo maray sheegan aniga saddexdaydu sidaan nahay maanta subxaan mahadiisa waa hadal hawraarintii Idris Axmed